agaasimaha TV-ga Somaliland ee wadamada Khaliijka Mudane Mustafa Yusuf Cabaade oo isagu habeenkii xalay ah shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Tanjida ee wadanka boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyay ee warbaahinta si weyn u hadalaysay oo ku aadan in wasiirkii hore ee madaxtooyada Somaliland Mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan in kulamo uu la qaatay waxgaradka ka soo jeeda deegaamada Qorilugud iyo Wadaamago taas uu ku sheegay in arintaasi aysan ahayn mid sal iyo raad toonaba leh.